بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad wada ogtihiin adduunka inuu ku faafay cudur dilaa ah cudurkaasoo galaaftay nolosha dad aad iyo aad u fara badan muslin iyo gaalba leh isla markaana adduunka meelo fara badan ka gaaray dad badanna cabsi ku abuuray adduunka oo dhan wuxuu ku howlan yahay dhakhaatiirta dhan waxay ku howlan tahay cudurkaasi sidii loo xakameyn lahaa loogana hortagi lahaa waxaase jirta duco nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay ducadaasi qofka akhrista asagoo aaminsan ilaahayna ku xiran waxaan shaki ku jirin inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka hayn doono waxaa laga yaabaa inaad isweydiisid ma duco laga akhrisan karo coronavirus baa jirta haa way jirtaa bal ila dhegeyso 1400 sano ka hor nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ah raxmad caalamka loo soo diray wuxuu ku ducaysan jiray ducadan cajiibka ah allahumma innii acuudu bika min albarasi waljunuuni waljudaami wa min sayi'i alasqaami oo macnaheedu yahay allahumma ilaahayow innii aniga acuudu bika waxaan kaa magan galayaa min albarasi baraska ayaan kaa magan galayaa barasku walaalayaal waad wada taqaanaan waa cudur la yaqaano waa cudur ku dhaca maqaarka isla markaana midabka qofka bedela oo midab aad iyo aad u cad u bedela ama mara jirkoo dhan ku wada dhaca ama meelo qaybo ka mid a ku dhaca nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay ka magan galay cudurkaas sidoo kale wuxuu ka magan galay cudurka maskaxda ku dhaca oo waalida ah ilaahay wuxuu leeyahay waljunuuni waali ayaan ka magan galay sidoo kale mar labaad ilaahay wuxuu ka magan galay mar saddexaad wuxuu ilaahay ka magan galay waljudaami cudurka judaanka la yiraahdo waa cudur xun oo aad iyo aad u xun qofka uu ku dhacana mataqaanaa jirka ka goosta muuqiisa bedela faraha ka jara xubnaha ka jara qofka uu ku dhaco haddaa aragtid waxaa laga yaabaa inaa aad iyo aad uga cabsatid acuudu billah ilaahay ayaan ka magan galnay halkan u fiirso ducada qaybtan u fiirso wa min sayi'i alasqaam waxaan kaa magan galay ilaahay oo cudurada kuwooda xunxun noocay rabaan ha noqdo marka nabiga calayhi salaatu wasalaam cudur gooniya muusan sheegin laakiin wuxuu yidhi wa min sayi'i alasqaam cudurada kuwooda xunxun sida coronaviruska waa cudur xun soo maahan waa virus dilaa soo maahan aidisku waa dilaa soo maahan kansarku waa dilaa soo maahan cuduradaas oo dhan ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam isku soo qaado noocay rabaanba ha noqdee ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ka magan galay haddaba walaalkayga muslimka ahow ku dadaal mar walba ay balaayo dhacdo in aad ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa u carartid inaad ducooyinka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dib ugu laabatid aan ku celiya hal mar allahuma innii acuudu bika min albarasi waljunuuni waljudaami wa min sayi'i alasqaami haddaadan carabi ku oran karinna af soomaali ku dheh ilaahayow waxaan kaa magan galay baras waxaan kaa magan galay waali waxaan kaa magan galay judaan waxaan kaa magan galay cudurada xunxun noocay rabaanba ha noqdaane waxaan kaloo rabaa xusuusin inaan xusuusiyo walaalaha cudurkani walaalayaal cudur kala yaqaan ma ahan muslin iyo gaal ilaahayna wuxuu noo sheegay fitan hadday dhacdo balaaye hadday dhacdo cudur hadduu dhaco inuusan ku dhacaynin dadka daalimiinta oo keli ah saas darteed ilaahay wuxuu leeyahay wattaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa war ka baqa fitno aanan ku dhacaynin kuwa sameeyey oo keli ah markay fitan timaado balaaye markay timaado dadkao dhan way wada saamaynaysaa waana la is-imtixaamaya saas darteed waxaa loo baahan yahay in ducadana la akhristo lagana fogaado meelaha aad oga shakisan tahay inuu cudurkan soo gaaray isla markaana aad mar walba ilaahay ka baridid inaad ka magan geshid inuu kaa badbaadiyo cudurada xunxun aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ilaahay ha idin xifdiyo ku dadaala ducooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam kuna salliya calayhi salaatu wasalaam maadaama uuna baray ducooyinkan quruxda badan aan ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaanayno wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh